ardayda jaamacadaha ka baxda Soomaaliya arag markay qalin jabinayaan oo jaamacada ay dhameeyaan dufcadan oo dhan meel waxay tagayaan sawirada oo dhan ay ku dhijinayaan dufcadan ayaa qalin jabinaysa xafladii qalin jabinta markaas xaflad ayaa la dhigaya markaas Ilaahay waan qalin jabinay jaamacadii aan dhameynay waad mahadsantiin khayr Allah idin siiyo jaamacadaas kuwaas dhameeyay tirada badan meesha ku dhagan kuwa aan ka yarayn baan maalin walba intaan isku soo dhajino baan kor waxaan uga qoraynaa تعسي الله ونحرسه كونه يقلن جبين مرك إلى أنت وضعنا مرك ويقلن جبين ويوضعنا تعسي مرك اللي يسوى رسول الله وحن حقيقي ما ذانا ما اللي يسوي دينا ما له داعي إنتان حل هذينا عد يسوي ديني سماله باش عالم قحلي هذا مشكلة ويفيرنايان ماشي أقول مركي مريس أي دبك يسكر راعنايان كنا ويتجايان هاي كان ويلا شرايان كنا ويلا شرايان واسدي وحين قدجن هنا وحال هوان انتو قبيبي وحسوا خلافين تلو يوجي عليها إسلامه مركز سعودي وني خطر وحوري أنت تيجي ستان مدي عند بركة كتاب تعيان جعله مركز يسيجي ستان مركز سوق أنت هذي بدأ بركة كتابت مدول بس يسيد يسيب أنو يجي عليها marka dhabar kistaabshan inta iska daayo quraanka inoo sheego gaaladina ma jecelo inagu badaba ordayna ma ogiye ilaahay wuxuu yiraahdaa antum ulaa'i wardad yahu idinkan ha antum ulaa'i idinkum ba tuhibbunahum ja'al wala yuhibbunakum laakin ayagu idin ma jecelo kuwa badaan oo inay rabin ayaa kamid ah soo baxay waxa kamid ah Barack Obama ما يقدر ربي وحكوا صباح لي جيت كي لما يجري له مرة بس تك سؤال كرسي أسوق فديل الأرض ما ده هاي إن كان مذو وياه عدان ما هي أنا لقى الدين ما جرته هاي عدينا لقى الديو أو سيل سكوك على قال لحظة هذا ما لقى سوق بتلميه لايو وقت يسحب ما يستكل لحظة وقت يسود ما يست دور شوين كان على قال برلمان كونغرس سيل لو ذي إلهان عمر صباح ذي وصومالي مرة كان كأذي واكن إلهان عمر وحيس هيس ترام ترى مركا قبل هذي ترى لا دجالس هرتب الماشي أنجون وقادب قبل صوماليات يترام أيها فعس من أو ويلا دجالسا أصلا وركي سو شيكتا أيضا وركي هذا شيكتا مركا ضمن أرضي كل علي وما ليه دونا أنت ماشي كل ما تي الله هو ذن حريصه كيد لي يكيد أنت كل الله هو ذن حريصه أنت نولنا الله وضنا كل جيم مرك الله وضنا حريستنا مرك حل أيه نجرب تاعي حل كنا إسلام كوجراي إسلام كان الدين تنتان آمنه مكرجة يشرق الله ذا لأنهم مليجاي لأنه سمينا أيو دنتين إنه كوجرين قالوا سمينا يعني أنا سلام كبحنا عن ديارك الله هنا سنة لوهايو سيد الله قبل حلا هدينا ضد وكعنوني ورسين كيلنا لقيت شنين سام بالكوجراي من خير الذي سيو بريا waxaa jiray bariga oo jaadka la joojin jiray bariga jaadka inta la joojiyo la qofkii lagu arko dabargoynta qaadka dhigi jiray waa la mamnuucay guriga la wareegay liiro waad ogsoontiin dadka waxa way yaqaanaan jaadka soo ma joojin dadka madaxda ee jaadka joojintiisa soo saaray ee dadka dadweynaha ku ciqaabaya ayagu way qayiraan waa loo keenaa sidoo loo keenaa galabtii iyo habeenkii u fariisanayaan way qayiraan jaadka waa la joojiyay guriga lagu wareegay waxa la jaad lagu qabtay oday garsooraa waqtigaas xilligaas yaa kuwo jaad lagu soo qabtaa loo keenay uu diiwaan geliyay intay ahaayeen intii jaadka lagu soo qabtay waxa la marka faylkooda la soo cadeeyo baaritaan lagu soo sameeyo hal soo celiyo mar kale markii kale inta la gaar xabsi markii lagu celiyay intii dawladda show kuwa ka agdhow isku reerka ahaayeen hoosta laga sii daayay intii kale oo baadana lagu soo celiyay maxkamadii garsoore markuu yeeray hebel aaway ma joogo kuwii askartu weydii wuxuu dadkii kale aaway ana gudoomiye waan soo kaadinayna intay dhahan ayay baxsadeen masaasaha afmaameentu kula hadlay sheekana qaadno Allah u naxariisto dhintay intii maxaabiista kale ay meesha fadhiday ay aan la sii deynin ya warantu qoxay isiina baha kaadiya idinka bax soo kaadiyo hadii intii la soo kaadiyo iska baxsanaayo maxay idin meesha ku haysaan kaadid ma ismeeyay ordu idinka la soo kaadiyo يعني دينتي إسلامك أهيد وحي إلهي وحارانتني مي أول لو جيدو
hadduu uusan markaa asaga markaas u muuqato adduunyo una uga jeedin wuxuu leeyahay inoo wada hawsha war ilaahay ma ogole ka joog mida waxaa la yidhi wuxuu yidhi 4 naagood ka badan aan guursanaa dadkeeni way dhammaadeen dagaalla lagu dhammaaday si aan intii dhintay u soo gudo waa inaan 20 iyo 30 iyo meelahaas guursado waxaa la kitaabka ilaahay ma ogole 4 ka badan markaas uu iga leexo kitaab ilaahay dantay moog kitaab ilaahay ma dantay koogya dantay ana aqaan ma kitaab dant yaani marka arintu ay noqoto dantayda anun ba aqaana taasi wax sax ma aha danta ilaahay ba yaqaan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ilaahay wixii aan sameyn jiray carafan soo istaagay adna waad ogtahay anna waan is ogahay wixii xumaa aan sameynayay halkan aan ku ga toobad keenay oon dhigay ilaahu marxaati ka ahow wixii dadku ay ugu lahaayeen waan u celinayaa iafiyana waan dhahayaa dib dambana u geysan maayo kacbadaada agteedana ballan ku galay masaama soo dhaaya ma dharca intuu ku gasto halka uu ku joogo wuxuu leeyahay duro Facebook kala socdaa markii wax laga sheegay aan idin soo noqdo xaquba ka soo dhaaranaya maxaad noogu soo noqod nagarabta soo adigi toobad keenay ma aha yaani ka soo qabaysay ma dambiga waxay u ka dhigeen soo hadda midalan ajal marka dhageysanayso hawl yar inaad qabsato aad rabtid soo macala bows soo lama taabto dambigu bows u yar istaagsi bas bows loo dhaay bas inta maalmaha xajka la joogo bows u yahay markuu ka soo laabtana meeshii muu ku dhufanay bowskii uu ka qaadaya halkii uu ka sii wadaya idan xajkii muxuu taray alxajj almabruur ma kaas marka ko muxaayad soo galay waxa la yiri sokor iyo waxbuu qabay wuxuu yiri sokorta kabariyeri wuxuu yiri sokorta haygaga soo darin waan iska mashquulsan oo ahaaye sokortii ku soo daray shaahina korku uga soo daray uu soo hordhigay markuu soo fiiriyay nus wax ku dhow sokor waan markaas sokor uu qabay dhiikarkii ku kacay qaylo wiilkii yaraa ku qaylo wariyaasoo kuma dhin sokor haygaga soo daray maxaa sokor ku soo dartay wiilkii kama baan wuxuu yiri adeer ha ku qasinno korle kacbis marka waxaan ka wada kii mucaarado waxba dilaynin oo la dawladda halkaas ay ku khaldan tahay Soomaa wixii ay ku khaldan tahay la sheegay ha ku qasinno adi meeshii la iska toosi laakiin waxa dib u heshiisiin u baahan dadka isdilaya hadda koora qisay waxa nina meel uu sheekh ka ah marka sheekhani waa nin rageed maahine cilmiga ma yaqaano dadku iska waabsadaa marka laakiin mida uu imaaday maalinka dambe marti oo sheekho laakiin wax yaqaana wuxuu dadka ku wacdinaa oo leeyahay قال تعالى إلى يحور فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا تكذا ما طاب لكم من النساء مثنى لبلبة تكذا أو حلقوا صلاة الصبح يو الرباعة يو الثلاثة والثلاثة والرباعة ثلاثة ومغربك والرباعة وأنت كلا مركب فانكحوا تكذا شيخ هو يابي وحوري انتوا الله هذا الأذر إلهي بانكو دار شيء ما فانكحوا بها تكذا وحوري ومحي تهدينا هي فانكحوا تكذا محل وفسري كرا مركز هو قرت مركب ماشي إلا سوق عليه بس إنه ماشي عشتين ورها بعضيهم وفانكحوا تكذا لا يسيء هاتو وحوري دتك انتوا الله الحور دقيست نينكاس بري الصبح أيام مساك سوق معنا هنا وأنا دودينا قفك علم لا إذن كان كلا ساريسين هذا دوينيتين صدح سؤالون بنا ويدينا يا هذو صدح لبنا وان كهلا أو يلا هذا ها هذو كجوابه إنه سووا حبا قونين أو مد ظالم أو أنا جاي قدر هاي السنة إنه يهاي ساووا أجاذا وياي بس ماشي على السوق ماضي وذات كانوا ماضي هذا الشيخ هذا يجوا يستفنك حتى كذا عاوي وأنا أقول أنا كويس يستفنك حتى كذا معه مركز سوري سؤالا كويدينا يا مركز سوري ويدي إلهي صومده قل هو الله أحد مركز سوري ها الله السمد سو إلهي مده ها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفار أحد سو إلهي مده ها معايا أربعة عندها كلفت والسكوب هذا مركز من كان صدح مري ها ما كجسي يورت ها محور ربان مركز ما شو ربان وقصوا ويسرق قسنت مركز تبكي وحيدة مركز علماء كلا قبت هذا كسماي وحكى سعود هواي علماء كلا قبت إنه ينوت على مركز علماء كلا قبان لاين ريب هديها موجتاي سمع قالوا كلام كلا لها
qolal oo ay kala seexseexdaan waalidka iyo caruurta iyo male aqal Soomaaliga la wada seexdaan kuwa ku kuusana marka aqal Soomaali dhinac ka seexda reebaadusay wax ku dhalan ayaga yaqaan marka saas ay taana waxan baa la dhalaa mar ay seexdeen ilmuhu haday doonaan markaas kadib laga dhigto dib loo dhigto habeena marka ilmihii mid ka mid ah oo inuu seexday loo maleeyay malaha ma buuna seexanin wuu soo jeeday waxbuu arkay markaas subaxdii yuu ku yar uga sheekeeyay wuxuu yiri waxbaan ku tusi caawa seexanin haye istaan baa la galay ilmi istaan bay ugu jireen xilligii dambe ee xaaladdu ay ahayd ayaa la gaaray kii wax ballamiyay ee hore yaa wuxuu damcay inuu kii toosiyo oo yiraahdo hawsha haday bilaabanaysa markuu damcay inuu toosiyo ayaa wuxuu yiri waryaa waan soo jeedaa in dhafrahay gelin indhafrahay gelin niyowan hadda Soomaali xaaladda ay joogto waxay tahay waa la soo wada jeedaa kuwa waxay marka dadka indhafrahay geliyaan waa la iswada fahmay waxa la isku haysto waa kursigaas seen uga heshiina intii la yiraahdo taas inagoo heshiisay dan inoo wada tahay saas ma lagu qaybsadaa ilaa laga gaaro ma soconayso